mas-uuliyiinta Jamciyadda Nuurul Islaam ee gacanta ku haya dhismaha xarunta dayactirka kutubta Quraanka Kariimka ayaa maanta kulan la qaatay saxafiyiinta gobolka Awdal. kulankaas oo ujeedadiisu ahayd sidii ay saxafiyiintu doorkooda uga qaadan lahaayeen bulshadana u gaarsiinayaan si ay uga qayb qaataan dhismaha xarunta dayactirka kutubta Quraanka Kariimka oo ka socota galbeedka magaalada Boorama. kulankaasi oo ka qabsoomay xarunta Jamciyadda Nuurul Islaam ee magaalada Boorama ayaa waxa ugu horreyn halkaasi hadalka iska daba maray Sheekh Jamaal Yuusuf oo ah gudoomiyaha Jamciyadda iyo Sheekh Cabdilaahi oo kamid ah mas'uuliyiinta Jamciyadda Nuurul Islaam iyagoona uga mahadnaqay saxafiyiinta gobolka Awdal sidii wanaagsaneed ay uga soo qayb qaateen khayrkani sidoo kalena loo baahan yahay inay si libajibaaraan iyagoona dhinaca kalena soo bandhigay kutubta Quraanka Kariimka oo ay soo ururiyeen iyagoo bulshadana ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xaruntani. halkan waxa yaala markaa kutubtii Quraanka ugu murugada badnayd ayna soo martay intii aynu ku jirnay ururinta kitaabka Quraanka Kariimka waxaan ka soo qaadnay gidaafad baa laga soo qaaday. waxa jirta marka qaar kood qolooyinkan khashinka qaada ee gidaafadaha guraya ayaa dadkii markii ay kutubtii badatay go'go'day ay dabeetay marka wax qaadaan kutubtii oo go'go'an waxa lagu dhex daraa khashinka. baarid baan sameeynay dabeetay waxaan soo ogaanay in dadku leeyihiin mar haddii oo go'go'ay la gubayo khashinkuna lagu dhex gubo. taasina waa runtii wax weeye mid laga subxaanallaysto. markasta waxaad arkaysaa in musxafku saa inoogu dhex dayacan yahay. ما ها كلياتي أول كلية ما ها دوني دورنا بمركز سنة وجود حدا يعيه مرة دوس سنة وجود حدا يعيه دون كيوردن وحنا سنيدي مركز حكوها بونتاي إن ميل وجار الله سميه أو الله دسوا أو مركز هالك كتاب كقرآن كا لجو إلاليه قلب كيسي مركز لجو سمينينا لور راديو سام مركز لجو ضيعتنا تعرفني مركز إن ندي سوق بناي واتاس نلو ذاكتان مركز إن شاء الله حندوني إن حويان إنه كوض الشقينه سين بلشدنا وجوع قليل هين aynu gaarsiinaa dib ka weyn runtii ma jirto xanuun oo dhan waxa ka weyn in kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala magacii Ilaahay ku qoran yahay aziiska aha ee sharafta lahayd qiimaha badnaa oo dhaxdeeni markaas sidana uu ku noqday marka waxaan codsanaynaa saxaafadda iyo dhammaan dadka muslimiinta ah daafatunta jooga inaanu nagu dhaxdayamin kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala. marka idinkuna runtii waxaanu idinku mahadnaqaynaa hoo iyo heelta naga garab taagantihiin waxa weeyaan markaas saxaafadda Ilaahina subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka idinku daro waayo saxaafaddu waxa weeyaan waa seef laba afle weey. marka insha Allah sidaad khayrka ugu adeegsateen Ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa mar walba warbixinta laga dhiibayo aad waxa weeyaan marka diyaarka u tihiin Ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan haydinku anfaco idinka iyo ehelkiina iyo ubadkiina Ilaahi subhanahu wa ta'ala idinku anfaco. cid kasta oo waxa weeyaan markaana maqlaysa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa laga soo qayb qaato oo dhulka la bixiyay in ay dawladdu bixisay in loo dhiso waxa weeyaan hantidana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan marka in lagu bixiyo in amray meelaha ugu khayrka badan waana kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala halkii ugu qiimaha badnayd ee kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hantida lagu bixinayay buu kamid yahay. inta kadib waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay isku duwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Awdal Bakar Xasan Caafi iyo sidoo kale Ibrahim Suxufi oo kamid ah saxafiyiinta ka howlgala gobolkan Awdal iyagoona sheegay inay mar walba diyaar u yihiin saxaafadaha sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dayactirka kutubta Quraanka Kariimka iyagoo sidoo kalena ku bogaadiyay arintani mas'uuliyiinta Jamciyadda Nuurul Islaam. anagu saxaafadahan waxaan kamidnahay kuwii la bilaabay waqtigii la asaasiyay kutubta bilowgooda la soo ururinayay ilaa imigana sidii baan ula shaqeynaa. xil gaar ah naga saaran oo mas'uuliyiin baan nahay inaan cid walba ku baraarujino kitaabkii meel ku dayacan in la soo qaado oo xitaa haddaan awoodi kari weynayna inagu gubno ama god u qodno inaan soo gaarsiino jamciyadda dadkana aan wacyigelin u samayno aan nidhaahno la xidhiidha Jamciyadda Nuurul Islaam al-Khayriya oo idin fududaysayna meel walba idinku timaado oo ay idinka qaado kitaabka go'go'ay iyo kuwii aad meel xun ku tuuri lahaydeenba iyagu si ay u xafidaan u dhiiba. waxaananu ka saxaafad ahaan aan diyaar u nahay oo idinla garab taaganahay inaan idinla shaqayno waanad ku mahadsantihiin waan idinka mahadcelinaa hawsha ballaaran ee aad qabtaana ka saxaafadahan hadii la heeraado Ilaahay dartii intaan ku darsan karno intaan ka gaarsiin karno intaan la qaban karno waan la qabanaynaa
markaad noocan oo kale u shaqaynayso waxaa la yidhahdaa jihaadu bilisaan oo qof carabkii ku jihaadayo diintii ilaahay kor ugu qaadayo kale ayaad noqonaysaayo dee waa xilligii ajarka iyo aakhiradaba looga faa'iidaysanayay marka haddii ilaahay idhaahdo waxaan kusoo gebagabeynayaa inaan diyaar u nahay ka saxaafad ahaan inaan la shaqayno jamciyadda inaan la garab galno hawshaana nila qabanno haddii ilaahay idhaahdo waa cabsalaan saaha warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan magaalada boorama.